سورة العاديات وهي سورة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات فردها أردان كدارتي إلهي يضبحن حال أي هنراغيان ضبحا هنراغي فالموريات فردها مدك تشدان كدارتي قدحا مدك شديد فالمغيرات فردها ويران كدارتي صبحا وقت صباحا فأثرنا كعية به بذلك وقت صباحا نقعا بور كعية فوسطنا دحدحيستا به بذلك وقت جمع عدوى دحدحيستا إن الإنسان إنسانك لكنود ومن أبالك دعبضا لربه ربكيسو أبالك دعا وإنه إنسانك لشهيد أساقا كمرقاتئا على ذلك أبالك دعاس وإنه إنسانك لشديد ومدك أبد لحب الخير مال جعيلك إلى وضر سبحانه أفلا يعلم يبسر بين إنسانك إذا بعثر مركي لسوفاك بحيو ما في القبور وحا قبورها كسغا أو وحصل العبديو ما في الصدور وحا اللارها كسغا إن ربهم ذاتك الربقود لخبير ومدحق أقال بهم ذاتك يومئذ مارن كاس. سورة العاديات عاديات وحوين فردها أرض يوي عدوي بأرض كالي عدوي مركا إلى وحو كدارانيا فردها سببتها فردها قيمة قونية إلى هايين واتيني كده مسلمين تيهايين وحويان جهاد كاللغو قليي مركا الأردسيو جهاد كاللغو أردسيو أو أي أردان مركاسو مركا إلهي كدارانا قول كلاجرة وحويان عاديات وحلولة كده جيلة وانا لغو دوري جيرين كسوسن آكوسن وبضنين waxa kale to waxa lagu safi jiray waa lagu xajiyaa markaasna caadiyada waa geelo marka uu waxa weeyaan lagu aado xajka oonta mako kale laga wado oo lagu aado mino carafaad lagu aado lagu soo laabto carafaad laga soo raaco mustalifa lagu la soo hido laga soo wado mino la soo aado sidaasna waa lagu fasiray oo Ali ibn Abi Talib ayaa laga soo wariyay laakiin Haafid ibn Kathir aafar badan soo arooriyay وعلي بن ابي طالب يقول كيس بلغا ورينيو لكن محقق الدكتور بشير حكمه تمام ضعيف وكدغ الله waxa weeyaan lagu soo arooriyay oo Ali laga wariyay ama Abdullah ibn Mas'ud laga wariyay ama salaf kale laga wariyay dhamaan sanadkoodu waa dhaif yahay laakiin Abdullah ibn Abbas inuu caadiyadka farta ku fasiray iyo aymo badan oo salafka kamid ah tabiiciyaal iyo qeyrkood bare waa arinta saabita oo saxiixa ah sanadkoodana saxiix ka dhigay وانا سيده ابن جرير الطبري او دوفتay qaraa'inta marka la fiiriyana taasa saabid oo ku tusayda qaraa'inta calaamadaha marka la fiiriyo waxa ku tusayda in farda loola jeedo sifaadan fardaha iskale ee geeru malaha sifaadan waxa weeyaan aayadana marka laba qowl lagu fasiro labada qowl waxa lagu kala rajaxaa saabiqa waxa ka horeeya laahiqa waxa ka dambeeya iyo qaraa'inta iyo calaamadaha ku hareeraysan marka calaamadahan iyo sifaadan hadda la sheegayo geelu malaha ee waxa iskale waa fardaha marka qaraa'intaana tusayda qowlka sawaabka inuu yahay inay farda yihiin sidoo doortay ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. wal aadiyat wawda harfu qasam oo dhaar wal aadiyat fardaha ordaan ku dhaartay dabhan wa masdar fi'l mahdhuf ayaa la soo qadarin ficilkaas la xaarayna marka oo waxa laga xaarayna caadiyad ficilkaas ay masdar u tahay marka dabxan oo waxa weeyaan wal caadiyat fardaha ordaan ku dhaartay yadbahna ala ay hinraagayaan dabxan hinraag dabxiga Abdullah ibn Abbas wuxuu yiri Haafid ibn Kathir nawini dhigayaahe waxa weeyaan macnaheedu faradka markuu aad u ordayo oo uu leeyahay أوليه ونافتا كسو بحيوي سيدا يقول طالع ابن كثيرك لفظيغاس سيداس إنay رتهيبا عبد الله بن عباس نوعا في مثالي أو يقول فرس كبيرك الحوض وأرضه حركي صعودك كسو بحيا أوليه
وليه هذا حق وصو بحيا كاس على يرهود ضبحا وفرس برحمية فالموريات فردها مدكته هريان كل بارتي قدحا مدكورين ان وحويان dadka miigo way garanayaan markay dad u baahdaan laba qoriyo soo qabsadaan laba qoriyo qalaan meel ilaahay tagayaan dad taraqin uma baahna qoriyo dhulka dhigayaan mid inta fooda quraan ay ku xurbinayaan labada qori markay isxoqto adab ka dhalana dabkaas iska shidan ay ku karsana hadawna iska taga uma baahna mid kale iska qorana waxa weeyaan madaga leena marka madag la yiraahdaa marka qof min xoolo xoog leh u baahanta laba qori xoog markii la isku xogo adabku ka dhalana marka faraska hadeer waxa la leeyahay ilaahay fardaha madagta huriya ama madagta shida see madagu shida farasku dad caadi ma shido asagu laakiin fardaha qoobabkay kala u gali jireen ila dhagaxu ku wadas uusan u qoob jabin markuu ku dhifto qoobkaas oo kabta binta ku jirto markuu ku dhifto dhagaxa daba ka baxa waxa ka yiri wali habeen madow haday tahay habeen madow hatta hadan kala loo galin faraska qoobkiisu waa bil habeenkii marka uu xoog u wardayo markuu qoobka la helo meel dhagaxa oo uu ku dhufto oo dhagaxa iyo qoobkiisu isku dhacaan waxa weyn daba ka baxay madag hurinta la sheega taas weey waa qoobkiisa ku dhacaya dhagax falmuriyati fardaha madagta huriyaan ku baartu ilaahay yiri qadhan madag hurin qadhan dabhan ila mito masdar weey oo ficil mahdhuufa ayaad ku nasbi kartaa kana ku nasbi kartaa falmughirat marka sifadan oo inta dhulka qoobka lagu dhufto dhagax in dab ka baxo farasa iskale geelam arintaas ma laha sifadaas geelu ma laha sifadaas falmughirati fardaha weeraraan ku dhaarto ilaahay yiri subhan waqta subhin waqti subhiya fardaha weerara nabiga sallallahu alayhi wasallam cadowga subaxdii weerari jir habeenkii ma weerarayo waa suga subaxdii u dhageysana haday adimaan waa ka jooga haday adimi diidana waa weerari jir subaxdaas day barqaysto oo barqadii la gaaro ma weerari jiri waa u kaadi jiri galabti marka asr marka duhurka uu tukado dabayshu dilaacdo nasr uu soo dagayo gali jiri markaas marka fal mughirati fardaha weeraraan ku dhaartu ilaahay yiri subhan waqta subhi waqtiga subhiya oo fa afarna kiya bihi waxad ku in subhiga eli bihi bidalika waqti waqtiga subha naqan boorka kiya waqtigaas markay waxa weyn qoobka dhulka la wada helaan siiga irka ku dhig farda oo fawasadna dhaxdaxaystaan oo dhaxda ka gala bihi halkaadu cilin laba meelood oo cili karta bihi waqtiga hadana cili bihi bidalika alwaqti waqtigaas ay waxay dhaxda ka galayaan jam'an jam'a adawga kamida jam'a adawga ay dhaxbartanka ka istaagayaan waxaad kale too cili karta bihi da naqan tabarka u cili oo waxaad tiraahdaa فوسطنا دحدحيستو دحدا كغلا به بسبب النقع بورك سببتيس جمعا كان عدوه oo waxa way markay fardihii qoolka dhulka ku wada dhiftaan oo boorka siigadu kacdo cadawga ayaga u jeedin oo boorka ku dhex gambaraya dhex galaya boorkaas ay ku gambanayaan markaas ay cadawga dhexda ka istaagayaan ilaahu subhanahu innal insana insanka لكنود ومد جزارد بدن اما ابالك دع بدن لربيgiisu abaalka dhaca kanuudka waxa weyn qofka abaalka dhacaw waa qofka ilaahay ni'amtu u galay ku caasina indhihi uu siiyay ayuu ku caasina oo ku firina xaraamta tash mobile ku soo duubtay waxa weyn shaleemo u meel la fadhina asaas leey waa ish alla siiyay wuxuu saas ku yeelay wixii alla ka xarimay ku firina شنيمو يقرن يحرام كفيرنا وايش الله سيي دغيه الله سيي وحرامته كدغيسنا موسيقى قربان حرامته دعميه يلوي الله سيي وwaxa dadka ku dulmina dadkii ku dila oo ku bilaqaysana xoogii xoori الله سيي ay dadkii ku dhici oo ku xad waxa weeyaan aqliga ilaahay siiyay ayuu shar uga fakari qalbiga ilaahay siiyay shirki iyo kufri ka buuxin waxa ni'amti ilaahay siiyay oo la rabay daacad alle inuu adeegsado ayuu Allah inuu caasiyo u adeegsanaya bal qof walba waa inaad fiirida nasiib inaad ku leedahay arintaas in kale marka kanuud waa qofka jizaar ka leeyahay jizaar jizaar ama abaalka dhici ilaahu wa innahu
على ذلك لشهيد إنه الكل له علي لبا له علي الله له علي وإنه ربي وكان ولا صو شيء إن الإنسان لربي ربي إنسان ولا صو شيء سما ربي ده العلم وإنه ربي لشهيد نسغ مقاتك على ذلك إنسان إنه أبالك دح بدن يحيى أو جزير يحيى ربي مقاتك تاس مركز اسك عباي شرح كلام او بانا الهي مرقاتيو كيي waxa kale loo celiyaa innahu insaan wa innahu insaanku ala dhalika abalka dhacas la shahiiduna saga marqaatika insaanku asaga marqaatika inuu ilaahi abalka dhacay oo see abalka dhacas marqaati weey ma insaankii yaale ana ka marqaatiga inuu ilaahi abalka dhacay miyeehin gaaladi hada qof muslim xooga caas inuu yiraahdo waa dhici karta isgarto laakiin gaalkii iyo qofka bidcoolaha dhihima ma dahayo inuu yiraahdo laga ma yaabo ilaahi waa abaalka dhac bal ilaahi wuxuu sheegay bidcoolayaalka markay wax fasahaadinayaan yahuuda markay wax fasahaadinayaan inay isku haystaan inay hanuunsan yihiin oo ay isla fiican yihiin wa yahsabuna annahum muhtadun wa yahsabuna annahum muhtadun waxay u maleynayaan inay hanuunsan yihiin aakhira marka la tago xataa wixii oo illa waan qaldanayn marka ay naarta aada wabadallahu min allahi ma lam yakunu yahtasibu ilaahi yagtiisa marka la tagay waxa u muuqday waxaysan marnaba malaysan waxay islaahayn halka kooxa ee badbaadayda ee ilaahi dartiisa u eedowday ee diinka ka run sheegtaba oo idinka islaahay laakiin ilaahi marka la hortagay inay beenta u soo baxdo markaas ay leeyihiin subhanallah wabadallahu min allahi ma lam yakunu yahtasibu marka sidaas oo kale qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala ila wada man kaga warama dadka kuwa u qasarada badan ya waay alladheena dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa dadka adduunka intay joogay amalkoodii lumay wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a hadana isku haysta inay dariiq ugu fiicna ku wadaan amalka wadadka ugu qasarada badan markay see marqaati uga yihiin waxay marqaati uga yihiin labo illa aakhira way aakhira yaa ka marqaati ka ayna ilaahay abaalka dhiceen الآخرة مركز تواقنا قف إنه لنصنع سيدا إلهي بيقول سبحانه فاعترفوا بذنبهم ذنب قودية قرتين إليه ووحي إليه لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب ما كنا في أصحاب صحيح وهو القرآن يعني آخره هذه اللي رأوا استعد مرة آخره مقاتكي معناه كله الدون كان مقاتيك يندي له محل وجوابه الا اساس يكون فصل العلماء اكثر كودي الدون كانسان اسغا كم مرقاتي الهي ابال كدعي سي مرقاتي ويه waxa jira wax lagu gartaa waa labo lisaanul haal iyo lisaanul maqal lisaanul maqal wa afka inaad ka tiraado ilaahay inuu abaal ka dhacay taas ma badno lisaanul haal macnaheedu waxa weeye saas marka uu fiirido xaaladiisa waxa ka fahmay qofkan ilaahay inuu abaal ka dhacay hadda adiga fiiri waxa aragtay qof waxa weyn indhihi alla si diintu ku akhrisanay oo dhagihi ku dhageysanay oo wajiga ugu sujuuday oo maalkii meel baaca ku bixinay oo xibnihiisi oo dhan alla ku adeecay asagan ku dhin anu ilaahi waa uga shukri nimcadi waxa leedahay qofkan ilaahi nimcadu si waa uga shukri oo alla ku adeecay leedahay asagan dhihi xaaladiisa ku tusay laakiin hadda aragto fiiri qof indhihi alla si ilaahi ku caasina oo xaraan ku fiirina oo dhagihi alla siiyay xaraan ku dhageysana oo xibnihi alla siiyay xaraan ku sameeyna oo maalkiisi waxa weyn ku tumana oo meel kasto xaraan ku bixina sidaas oo wanaagsan afkana kuma uusan dhihin anu ilaahay waxa weyn ka abaalka dhaca qofkaas ma u baahanta inaad tiraaniyo ilaahay ma ka abaalka dhacay mise kama abaal dhacay inaad tiraamo u baahanta uma bahni xaaladiisa ku siiday warcad oo ku tiri qofkan ilaahay waa abaalka dhacay marka insaanku meesha uu marqaati uga yahay inuu abaalka dhacay waa xaaladiisa marka la fiiriyo إلهي سبحانه وإنه إنسانك لشديد ومدك أبك لحب الخير مال شعيلك إنسانك آذو وأذقي آذو مال أذقي وحكا المفسرة وإنه إنسانك لشديد أي لبخيل ومن آذو بخل بضان وحمتدا ماليه إلهي لها اللغو بحيو كما بحيو وبخيل لحب الخير مال شعيلك درتيس لبدا مذهب صحيح يحافظ وإنه إنسانك لشديد ومدك أبك لحب الخير مال شعيلك أدو أدو يسترتدو انتكو بخيلا إنو مالي حقاكو بحيو إلى وحر سبحانه أفلا يعلم ميوسا أغين إنسانك إذا بعثر مركي لسوفات بحيو
بعثر لما فعل الله اسك صار بعث يؤثر ولا صار الله اسك دار marka sare بعثر بعث يؤثر ليه marka la isku daro marka maxay بعثنا waxay soo bixin uthirana faagide isku dar marka ida بعثر markii la soo faaq bixiyo oo inta la soo faago la soo bixiyo ma fil quburi wixii quburaha ku sugnaa ee dad ahaa oo waxusila la cadeeyo la kala saaro ma fi suduri laabaha wixii ku sugnaa wixii laabaha ku sugnaa min al-kufri wal iimaan min al-yaqeen wal nifaq min al-hasad wal nusx bal qof kan qalbigiisa maxaa ku jiray qof kufriya ka buuxay qofna iimaan qof ikhlaas ka buuxay qofna riyaa iyo istusus iyo shirki qof waxa ka buuxay nusx inuu dadka qaylka la jecel yahay qofna waxa ka buuxay xasad qof wax dheer haduu arko waa gubana xasnima ka buuxay marka wixii quluubta ku jiray marka la kala saaro xusila macnaheedu waxa weeyaan muyiza wa buyina marka la kala saaro oo la cadeeyo inna rabbahum ya'lamu maf'ulkeedu waa maxduuf marka la kala saaro la cadeeyo oo banaanka la soo dhigo inna rabbahum rabbigood insaanka rabbahum ka loo celin insaanka loo celin oo insaan hada hal insaan oo hay rabbahum damir jamca sal loogu celin waxa loogu celinayaa insaan alayr ashwa jinsiya insaan oo dhan ay ku dhacayda hal xaba ku dhicin asha jinsiya marka waxa leedahay inna rabbahum insaanka rabbigood bi insaanka yawma idin maalinkaas qiyaamaha oo la soo bixinayo la khabirun xog ogaalu marka jumladaas waxay tusaydaa mafcuulka ya'lam oo noqonaya afala ya'lamu miyusan ogeyn idaa bu'thira marka la soo faabixiyo ma fil quburi anna nujazi waqta dalik anna nujazi inaan abaal marayno miyusan ogeyn way bismillahir rahmanir rahim